munaasabad ka dhacday hoteelka Rays ee gudaha magaalada Boorama habeenkii xalay ahaa oo uu soo agaasimay hal abuurka da'da yar ee lagu magacaabo Cabdiqani Xuseen Mandela. Munaasabadani ayaa waxa loogu magac daray habeenka hal abuur Cabdiqani Mandela ayaa waxa ka soo qayb galay dhalinyaro aad u tiro badan iyo abwaano iyo mas'uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ee gudaha magaalada Boorama. Munaasabadani ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi isla markaana waxay si weyn u soo dhaweeyeen habeenka hal abuur Cabdiqani Mandela. inaan macnaha waxa jira markuu xagga faa'iidada lagu tartamo waa laga maarmaan way fiican tahay laakiin marka xagga xumaanta lagu tartamo ayay wax xumaadaan waa yahay marka waxa weeyaan waxa sidaan u leeyahay waan arkay hawlo badan oo noocan ah ka soo qayb galay waa tii ugu qurux badnayd ee arko macnaha hargeysa dhowr meelood hadday noqoto suugaan ahaan hadday noqoto anshax ahaan imika waxaa laga yaabaa inaad la yaabatii buuqa yar iyo waxaa jira dadka reer Boorama ammaan bay iga mudan yihiin waa dadka dhageysta weeyaan suugaantana dhadhansada xulashada erayada oo isticmaalaya marka runtii waxa iyadna aad noo soo jiidatay oo indhaha ku haynay aniga iyo rag badan oo ag fadhiyo abwaan dambiil iyo cartiya ka mid yihiin xulashada erayada sida uu markaas inoo xultay kullee aan soo koobi doona waxa kala oo iyadna ah waxa Ilaahay loogu mahadnaqo xarfaha ka gabiyay oo runtii xarfo aad u macaanaha waxaan aad ugu mahadnaqayaa Cabdiqani on leeyahay xarafka yaada ayad ka samaystay gabayga yoyotan intaan suugaayaan arkay waxaan u malaynayaa gabay dhaadheer oo yaa laga sameeyay ninkii labaad baa tahay xitaa waxaan oran karaa maxaa xaashi nooc gaariyo iyo kuma sameeyay gabay runtii Cabdiqani waxaan leeyahay waxaan ku gashaday waxa ugu weyn saacado badan oo caaw bixiyay ugu weyn saacado waqti waa shay qaali والله waxaan ku leeyahay saacada ku dhaaftay jirkaaga wax jaraysaa aniga kulis ma aysidin Cabdiqani wuxuu ka cabanaya garkiisiyo ay tiin madow ka soo baxday bariga maalin wuxuu isku bedelaya yaro baan anahay wallahi waa dad isoo geed fariisto ilaa isoo kaylahay baan mudsanay intii ay munaasabadu socotay hal abuur Cabdiqani Xuseen Mandela ayaa waxa uu halkaas ku soo bandhigay qayb ka mid ah suugaantiisa taas oo ay dadku si weyn ugu riyaaqeen Cabdiqani Mandela oo suugaantiisa xabad u akhriya isla markaana dadku ay si weyn ugu sacbatumeen dalkaygu dal ma aha dadkiisu ma dhaamo qabyaalo ma daayo xumaanta ma daaho xalaal ma daneeyo xuquuq iska daaba dalkayga canaantay u sheegay dantiisa waxaan yiri dawlad dadkaaga ku doortay sideed u daryeeshay dantooda ka yeeshay dadkii u habaysay dalkii u jahaysay su'aalahan diiran afkaygu ku deeqay xaqooyin dushayda u saaray dadkaygu u sheeg dawladda hadday dulmi keento dastuurka khilaafta sinaantana diido dalkayga u sheeg inay khalad daartay aniga da'daydu 20 ma gaarin imika ma hadayaan markay 20 siyaasadda guri sareeyo siyaasadda guri nusqaamo siyaasadda reer ka kooban siyaasadda wax ku saabsan sinaantana la ciblibteeda siyaasadda soomahaadka siyaasadda surbacaadka siyaasadda boob ku saabsan siyaasadda beenta beerta dalkay sulantaas qiiray dadkii sidataa bas beelay saadaashana waan saluugay rajana samirka ka guuray nolosha sirc baa la taala haday garan weydatiisa isku soo wada duubo munaasabadii habeenkii xalay ahaa ka dhacday hoteelka Rays ee gudaha magaalada Boorama ayaa waxay ahayd mid ka mid ah habeenada ugu taariikhda badan ee gudaha magaalada Boorama isla markaana ay gobolka Awdal ay ku soo badanayaan dhalinyaro hal abuur ah kuwaasi oo dadka intooda badan ku wacyigeliya arrimo ay ka mid yihiin tahriibta iyo balwadaha waa nuux kadiye Raya TV magaalada Boorama.